goobtani waa Hargeysa nolosheedu xawli bay u socotaa marba marka ka dambaysa noloshu waxay isku bedelaysaa casri xawliga ay noloshu ku socoto marka laga yimaado xawliga ay noloshu isku bedelayso marka laga yimaado dhaqdhaqaaqa noloshu xawli ayaa ku socda waxa xawaareynaya ilbaxnimada dhaqamo badan dadku waa ay iloobeen laakiinse waxaa jira hal wax oo ilaa imika aanay ka tagin halka shay dadku way isugu naxaan waxbay isugu taraan way isku jeclaadaan isku soo wada duubo mararka qaarna way isku nacaan inkastoo qofku uu wanaagsan yahay bili aadanimana leeyahay haddana waxaa lagu qiimeeyaa qabiilkiisa sheekadanina waxa ay qusaysaa arrintaas والله محمد عند شدات اسكندريه ولا حكم قاعد يستشفى ولا واحد ما دعا يستشفى kadib markuu caawiyay gabadhii gargaar bani aadanimada u fidiyay 7 cisho kadib maxaa dhacay صاحب حالته في عن صاحب حينك دمي صاحب والله صاحب صاحب ها صاحب شيل بنقلي سدا صاحب وحده انا شلك صاحب والله صاحب شيل بنقلي لكن شيلكاس مو هيشلان كو قصاري من كو فايده صاحب شركه halkaad saaxiib shilku ka helayo maxaa dhacayo maxaa ku والله صاحب شيلكو لو inaga ismac salaaminay wada joognay caadiga ahayd والله صاحب شيلكو iska kadisbuha laakiin صاحب waxaan ka faa'iido ka badnaa shilka wax badan ma noqonin والله da صاحب waan ku arkay inaad wax badan noqonino ha صاحب kale wadi caafimaad qabtaa ee warno da shilka imka ilaa imka sadex dareemsan والله صاحب imka waska fiicanahay inuu wanaagsan barnaantii markaa shilka galayeen meeshii shilkan ku galay ugu yimiday markaana maxay tolay walaa qof dadnimo la wahaa oo qaaday dhakhtar buu geeyay markaana wuxuu family dadka soo wacayo walaa markaa maxay tolay markii dhakhtarka la geeyay hadda laakiin iska fiicanahay saaxiib ma inaka ku jiray baa saaxiib wallahi maxay tolan markii aan shilka galan dhacay kolbo maxay tolay markii dambe uu caawiyay kadibna aan dhakhtarka yeelay balsarka maaha والله أنا كصاحب قف أدو في عنبها لكن أنا كمركي فاملي قول لها الله هوية بتلفون بسهاي مركي حرباينا نمك ويدي إن شاء الله
صح وقرتي لكن دوي wax saax ma lagu soo qorayo dhaqtarkii ma kuna noqotay ku xaaladada ma saaxiib dhawaheed bay soo gaadhiyo waan la xiriiraa dhaqtarkii ka xaaladdu waa fiican ma sha Allah laakiin wala saaxiib kula saaxiibada waa tahay tan ku waramo runtii ka soo baxayna aad u fiican marka inka xanuunka gaaro ku geystay wala saaxiib xanuunkeena ka bakaaga wallahi saaxiib haayo maxay tiro qof aad u fiican baa runtii marka inka sibaan u dareemaa marka waxaan rabaa insha Allah inaan la xiriiro aan maxay tiro telefoonkiisa raadiyo insha Allah aan xarajeenaya inaan helo maxay tiro aan la xiriiri doono insha Allah una mahad celin doono waayo qof fiican buu haa saaxiib ku caawiyo qofka ku caawiyina dabaal buu kugu leeyahay aniga saaxiib igu leeyahay waa saaxiibada waa saaxiibada dhamaanteen ilaahay baa badbaadiyay marka wallahi waa dooyina telefoonka soo qaadi ka shaqo ama saaxiib iska naso isaga saaxiib insha Allah wuu diri doono aad عليكم السلام ورحمة لا تهون عنك والله ما شاء الله محل سعيد في عمي الحمد لله ما ذكرنا الساعة سيدينكم محل حالة والله ده هو المفروض أنا أستهل نمبركم من أجل والله كيف هو يسافر شيء